ganacsatada xooga badan ee dalka ka shaqeysa iyo bulshooyinka kale naga soo qayb gashay aad baan idin salaamayaa asalaamtu idinku celinaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal anoo afhayeenka guddiga culimada iyo ganacsatada waaweyn ee dalka waxaan rabaa inaan idin sheego ama idin yar falanqeeyo bal waqtigii aanu soo marnay si wuxuu dhaceen iyo guddiga sida loo sameeyay iyo wixii natiijo ka soo baxay anoo ku degdegaya culimada iyo aqoonyahanku iyo gaar ahaan nimanka la yiraahdo tijaartu dareenka maalinta dhacay 29kii bisha Shaabcaan ku beegnayd 1da bisha afraad markiiba kulamay qabteen degdega masiibadii cuslayd ee dhacday qaarkoodna wax badan ay ku lahaayeen waliba bunuugta waaweyn ee xoogga leh sida Dahabshiil iyo Dar es Salaam ay u badnaayeen deymaha badan ee ganacsiga ahaa ee ku dhex jiray halka haddana ma aanay fariisan shirradooda ay qabteen anaga kulankana loogu yeeray runtii waxa mucjiso ahaa marka aan soo galay waxaan arkay odaygii weynaa Dahabshiil oo fadhiya oo Cabdirashiid dhinaca ka soo fadhiyo Telesom Cabdinaasir Aadan soo fadhiyo Cabdikariim Maxamed soo fadhiyo Cabdirashiid yaani milkiilayaashu ugu xoog badan dalka Omar wakiil soo fadhiyaan sharaa'igii waaweyn soo fadhiyaan markaan nimidnaba leeyahay waxaan doonaynaa inaan gurmano waxna qabanno dibadeedna guddi bay meeshii ka kawaneen guddigii baa la dhisay يعني عيد كم مقلد ويري جودي وحال السكوب يلا بعتن حبرون كوبان دبديتنا وحال يري قاب كيبه إنه حنتدا أجوري كرنا أو إنه جرمت كا تذكر ولا دبتوبي أي إنه حوس ما كرنا دبديتنا إن وحنا بلون مركا قرشينتي كل ما إيش دبتشوجا عاو بشو ما أنت بشو سديد عاو السجال sideeda cisho waxay ahayd maalintii saddexaad baan kula ka bilownay kula maalintii labaad la bilaabay laakiin dhismaha maalintii saddexaad baa la sameeyay ilaa maanta oo 5 cisho ka soo wareegtay subax galab iyo habeen guddigaasi way fadhiyeen waxayna qorsheynayeen wixii la yeeli lahaa waadii sharaxi doonaa qaabka loo sameeyay qorshayaashada faraha badan lee fadhiyay waxa ka soo baxay in guddigii markii la dhisay la qoray faces aanu kala sameynay kuwaas oo kala ah faceka koowaad oo caawa aan ku tala galnay oo lacag 8 milyan oo dollar ilaahi idankii aan rajeynayno inay noo soo xirooto faceka labaad faceka saddexaad waxa weeye qaybtii dumarka iyo haweenka qaybtii dhalinyarada qaybtii waxa soo hadhay dalalka dibadda iyo shaqaalihii dawladda shaqaalaha baraafitka golayaasha qaranka golayaasha deegaanka iyo dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka ayaa loo dhaadhici doonaa si hantida meesha ka baxday bal waxaynu awoodi karayno aynu soo galino qaybaha cabiradu way kala duwan yihiin tan caawo waa tan degdega ah ee shakhsiga ama shirkadda la kicinayo ay ka jawaabayaan wixii aanu u qoondaynay inay noo jawaabaan intii ka dambaysana waxaan gali doonaa qaybaha aan soo sheegnay faraha badan leh sidoo oo kale guddigu waxa ay la xiriiday gobolada ama wadamada dibadda ka ah Soomaaliland bay la xiriiday sida wadamada Mareykanka oo gobolka Minnesota Soomaalidu u fara badan tahay ay kulamo degdega wadaan laga yaabo caawada aan joogno mid baa dhici doona axadana mid baa dhici doona sidoo oo kale Ingiriiska shirar degdega ayaa ka socday isagana sidoo kale South Africa uu ka socdaa sidoo kale Kenya xiriir baan la sameynay maalinta axadda ayay kulanka leeyihiin waxaan kaloo xiriir la sameynay magaalada Muqdisho cidii joogtay oo iyaguna waxa ku dhawaaqay 2 milyan laakiin dib bay isku noqdeen oo waxay yiraahdeen waa inaan ka badinaa waxay lagu dari doona garan mayno Puntland guddi bay samaysteen way la soo xiriireen way wadaan hawshoodii Djibouti
waxna way soo direen xagga xukuumad ahaan ganacsiguna wuxuu ballan qaaday inaan ka daba tagno oo xagga ugu tagno dowlad deegaanka Soomaaliyeed jigjiga shirkoodii ugu horeeyay way qabteen waana kuwii shalay toole salaadiintu ay hadashay ay yiraahdeen degdeg ha loo kaalmeeyo wadamada Carabta iyo wadamada Yurub qaarkood waan arkaynaa qoraalada ay qorayaan iyo fadhiyadooda sawirradooda soo direen laakiin xiriir toos ah lama intaan la xidhna waa intan weeyaan annaga qaabka iyagu wuxuu u shaqayn doonaa aan doonaynaa account-yaan samaynay account-kaasi in yar baan ku kala duwannahay ka dawladda waayo dawladdu waxay qaabilaysaa hay'adaha dawliga ah iyo waxay qaabilaysaa dawladaha caalamka ciddii wax taraysa dalkeenna ilaahay idinka wayna badnaan doonaan intaas iyadu qaabilaysa anagu waxaan qaabilaynaa ganacsatada iyo shacweynaha Soomaaliyeed isirka Soomaaliyeed meel uu joogaba ayaanu qaabilaynaa maadaama ummadeennii xogaa waxbarasho fiicanna way jirtaa maanta xogaa culaysna wuu iska jiraa sidiisaba oo ah shaki iyo dunuun baa soo baxday si loo kala bogsado ilaahay idinkii ilaahum baa bogsiin kara laakiin waxaanu qorsheynay wax ayagu wax digital ah inay ku baxaan website la yiraahdo kaalmada iyo gargaarka suuqa waaheen ayaanu samaynay haddaba aan la fadhino uu shaqeynaya oo inamadii ka shaqeynaya wayna la joogaan in marka wax alla wixii ku soo dhacay shilin ah markay daatahan noogu soo dhacdo annaga inay ka cadaato marka isla markaa buruugta waaweyn sida dahabshiil oo kale salaam oo kale amal oo kale ay ku soo dhacaan premier bank ku soo dhacay saa u soo dhacaanba daatadiyo culus waxa ka soo muuqan doontaa marka qofkii doonaya inuu galo website-kayga oo page-kayga uu tagayaa wuu ka eegayaa wuu ka arkayaa dhammaan wixii ku qornaa wuu ka arkayaa markaaba saasaan go'aansanay sida oo kale saan idin sheegnay horeba annagu nafteedana waan ka xarinay inaanu wixii meesha soo galaya imanaya aanu taabanno maadaama ganacsatada lagu magacaabay iyo ay joogaan culimadiiba in mataqaana wixii soo baxay ka soo lagu baxaya shir han noqoto fadhi han noqoto isgaarsiinta iyo warfaafinta han noqoto TV-yada qaran iyo kuwa kale noo iman doonaba han noqoto iyo wixii nagu baxa kharashaad ee stationery iyo wixii office lahaaba annaga jeebkayaga ayuu ka bixi doonaa jeebkayu ka bixi doonaa annagaana isxabsanayna laakiin xisaabta loogu talagalay dad yartaa marna ku jiri maayo haddii ilaahay yiraahdo gobolada dalka haddaan ku yarnoodo in yar ways abaabulaan dhammaantoodba xiriir baan ka haynaa gobolka Awdal gobolka Togdheer Sool waan ka haynaa Sanaagna TV-dan ka aragnay waa dhiirigelinaa dhammaantoodbana shacbiga waxa laga soo guranaa waa hawl shacab waa dhiirigelinaynaa inay samaamulaan oo iyaguna waxooda soo wara tagi doona haddii ilaahay yiraahdo qodobka muhiimkii wuxuu yahay marka anagu waxaan sameynay marka liis baan sameynay liiska lacag baan ku qornay qof walbaba macnaheedu shakhsiyaad way yar yihiin inta badan wax u badan yihiin sharaa'iga waaweyn buu badan yihiin oo isku tagay oo bulshadanu ay leedahay lacagtaas waxaan doonaynaa in loogu dhawaaqo aqlabiyadda shirkadahan halkan ka akhriyo doonana way dhawaaqeen wayna sheegeen waxa ay bixinayaan waxaan si aad iyo aad si gaar ugu sii mahadnaqayaa annagiyoonan dirsan oo la hadal ayaa waxa soo booday ninka la yiraahdo shirkadda Faras waxa uu kala baxday koob iyo laba uu kala baxday dabeedna qaybteeda koowaad annagoon laba hadlin ba ku soo shubeen lacag konton kuna sidoo oo kaleento ina gaafane xamsa uu la fadhiyaa annaga oo xalay oo kaliya telefoon u dirnay saaka uu ku shubay isagu sharaa'iga waaweyn ay ka mid yihiin dahabshiil telesom maxamed Saciid Omar World Remit ina afdiinle iyo Trafigura intaas qolo waa sharaa'iga waaweyn midkiiba waxaan ku qorannay lacag nus milyan ah waxaan codsanayaa in kastoo noo sheegeen annaga laakiin waxaan codsanaynaa inay lacagtaasi oo 3 milyan bar dollar ah annagoo bartaa joogna hadda ay noo dhawaaqaan inamadii mikrofoonka aawe waxaan codsanaynaa okay lagu kala kici maayo caawa ku faraxsanay runtii inaan liiskan ku qoray ka qayb qaadano lacagtaana account-ka berito ku shubno haddii la ka dhigo waliba shaqaalaha iyaga iyo wakiiladeedana waxaanu
ku dhiirigelinaynaa oo aanu kala shaqeynaynaa iyaguna inay qaybtooda aanu ka soo ururino oo aanu accountkaa ku shubno haddii alla ka dhigo asalaamu calaykum haddaan telesom group nahay anaguna waxaan bixinaynaa 500,000 shaqaalaha iyaguna waxay ku dhawaaqeen 100,000 inay bixiyaan iyaguna 600,000 weeyaan telesom waxaan halka salaamayaa madaxda sharafta leh oo madaxweynuhu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada haddaan u dhaadhaco anigoo ku hadlaya afka MSG Group iyo mulkiilaha shirkadda Maxamed Saciid Geedi waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa 500,000 waxaanu dib ugu noqon doonaa shaqaalahayaga waxay ku contribute gareynayaan suuqa waaheen inaanu qaybteeda ka qaadano wad maasantii salaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينها مدحوين كحجانك وسيردا لباندا دمان والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة أومار انترناشونال يدو كقيب قادنا الساعة دباتنا دعضي وهرمودنا كأ شركة هرمودنا كأ ودن كأ وحكي يبوه الساعة $500,000 $1 ونقد ديارة إلى حسابات كشوفنا هذا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaye shirkadaha toddobada ah waxaa ku qoran midiiba 500,000 waana 3 milyan bar weeyaan inta kale degdeg baan u yeerinayaa inta kale waxaan qorshaysanay markaa cidna inaan laga tagin haddana ma wada gaari karna bulshada sidaanu qorshaynay waa phase 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 taasoo socon doontaa marka imika sharaa'iga dalkan galaynaa sharaa'igan galaynaa intaan la gelin horta cidda bixisay ee dhaqaalaynta laga bixisay ayaynu u ducaynaynaa بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وهبة مهمة وحفلات غالية مدحوينها مدحوين كحيجينك قراء حكومة كان عسيدة كلا الدجن رمان مرتشرف كلا الدجن كسواق بشي حفلة وحاولنا يا مركو هوري ودعي سناين هوري وبركة سناين ما شاء الله مالكو يهنتيو دوا كم وقتي waxay ducadu ku kooban tahay ilaahay u aqbalo aamin allah u aqbalo aamin meeshay ka soo saareen wax ka khayr badan allah ugu bedelo ha ahaadaan kuwii jira weligood intii adduunyada jirta insha Allah ee walaalahood barbar taagan ee caawiya ee kaalmeeya cidda ka xanuunsanaysa caafimaad Allah u siiyo reeraha iyo xaasaska Allah u hagaajiyo ubadkii caruurta Allah u hagaajiyo dalka Allah inoogu hagaajiyo meesha ugu muhiimsan oo ugu qiimo badan oo jannatul firdawsa kuwii ku dhex mushaaxa ee ku dhex noolaada ilaahay uga dhigo allana ha u aqbalo doctorku waa mahadsanyahay waxaan ku yar degdegi markaa sheekhan ku soo celin doonaaye inaan liiska kale sidaa u akhriyo cid walba waxaan ku qoondaysanay waxaan ka bilaabayaa jaamacadaha dalka oo aad u fara badan wasiirkiina wuu nala joogaa markhaati buu ka yahay waxa weeyaan $200,000 shirkadda adco cali aadan baradho iyo cali waraabe iyaga $150 baa ku qoran $150,000 baa ku qoran daruuri shirkadaha bakhaarleyda $150,000 baa ku qoran SBI ina geelle waxaa ku qoran $100,000 baa ku qoran alxarbi waxaa ku qoran $100,000 sombaw waxaa ku qoran $100,000 الإخوة حقوقهم بقولكن سلمى جروب حقوقهم بقولكن AFG وحقوقهم بقولكن برواق بدباد جروب وحقوقهم بقولكن صفا جروب وحقوقهم بقولكن بحسنة وحقوقهم بقولكن إن دبرتا وحقوقهم بقولكن علي النبديد وحقوقهم بقولكن فرسكا أو يسووا 1 iyo 2 kala noqday 1kii way bixiyeen 2ga sugayna بقولكن بحقوقهم كنتم وكهينا دوا جروب شركتها الدولة kaalmaha shidaalka waxa ku qoran $100,000 colaad isugu soo bixiyayba oo imaaraadku joogay isugu soo dirayba $100,000 spare part companies-ka waxaan ku qornay $100,000 iskuulada gaarka loo leeyahay waxaan ku qornay $100,000 sida oo kale iskuulada public-ana waxaan noogu qoran $50,000 waxaana mas'uuliyadda qaadi doona wasaaradda dhakhaatiirta ururka dhakhaatiirta $100,000 suuqa gobonnimo suuqa la mid ahaa $100,000 ururka warshadleyda $100,000 shirkadaha farnicherka $100,000 Axmed Cusmaan Mindiq
min midhiq 100,000 shirkadaha qalabka dhismaha 100,000 sariflayaasha 100,000 waxaa ku qoran marka halka waa 2,900,000 halkaasina shirkadaha ay ka mid yihiin ina gaafane waxaan la jooga xamsana la jooga xamseere uu bixiyay lacagtiisa ugu 60,000 Red Sea Petroleum 50,000 Som Petroleum 50,000 Somar 50,000 Ambassador Hotel 50,000 Saadadin Furniture waxa Saadadin waxa ku qoran 50,000 Sagal Jet waxa ku qoran 50,000 Dar es Salaam waxa ku qoran 50,000 Tubsan iyo Motherland waxa ku qoran 50,000 Amal Bank waxa ku qoran 50,000 Premier Bank 50,000 xawaalada Tawakkal 50,000 Star Group 50,000 Daryeel Construction 50,000 Som Properties 50,000 Maxamed Ibrahim Dheere 50,000 isugu soo bixiyayba uu soo diray Maxamed Ibrahim Dheere uu soo diray shirkadaha socdaalka ee gobolada iyo degmooyinka dalka 50,000 iskaashtada Tawfiiq ee gaadiidleyda 50,000 iskaashtada Tawakkal ee gaadiidleyda xamuulka 20,000 dahablayaasha iskaashtada dahablayaasha Jawhara 25,000 halka waxaa inoo dhamaanaya liiskii guud baa inoo dhamaanaya ee soo qornay waxaan marka imika la wadaag waxaa badan marka waxaa iskaashatooyinkii xooga badnaa ururada mihnadlayaasha sida oo kale shacbi weynaha aan gaar lahayn oo dhan uu noo dhiman yahay shirka haweenkuna wuxuu dhici doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh marka waxaan codsanaynaa cidda hadda joogta ee lacagta bixisay iyadna inay istaagto ay gacanta taagto si loogu duceeyo cidda kalena ay ballanqaadkii samayso si markaa idna loogu duceeyo ugu horeyn waan salaamayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan qaaliga maadaama xaaladda meesha ka jirta aanay ahayn mid waqti dheer qaadan karta waxaan go'aansaday in aan halkan ku bixiyo lacagtii qaadhaanka ahayd ee guddida nagu soo qortay oo dhan 60,000 adigoo matalaya shirkadda Gaafani Group maasha Allah tabaaraka Allah lacagtaa la nagu qoray waan bixinaynaa haddii la yiraahdo marka aanu ku noqono xafiisyadii aanu isla shirkadda aanu wada tashano maasha Allah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada golayaasha qaranka dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka jawaabaynaa codsigaa lanagu soo qoray oo 150,000 inaanu qaadanay iskula noqonano keeninana kulley anaa ku socda shirkadda SBI Coca-Cola waxaan kulley wakiil maan nahay markaa kulley shila markaan isku noqono xafiiska aan ku noqdo lacagta la xukumay kulley insha Allah waan la wadaagi doonaa maamulka shirkadda ما شاء الله ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم وانو قادنا لعقتين ما شاء الله تبارك الله انا ku hadlay magaca shirkadda Som Power lacagta qaadaankana la ku soo qoray waan bixinaynaa waxaan ku shubay doonaa akoonka guddida lacagta waan aqbalay waana ayaguna lacag ayuu urinayaan iyaguna insha Allah taala soo shubi doonaan akoonka diraadi ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم كل mulkiilaha shirkaddu isagoo ku soo socda shirkadda safarkeeda ku soo baxay laakiin lacagta waan isla qaadanaa dib baan usoo noqonaa insha Allah soo jawaabna taana lagu soo qoray waan bixinaynaa maamulkii baan dib ugu noqonaynaa insha Allah billahi kareem bismillah haddaan nahay Safa Group waanu qaadanay lacagta ma sha Allah dib baan isugu noqonaynaa insha Allah xafiiskaan dib ugu noqonaynaa insha Allah waanaanu soo diranaa haddii Allah yidhaahdo anigoo matalaya ururka dawooyinka waanu aqbalay qoondada nagu soo qoray insha Allah waana bixinaynaa ma sha Allah marka hore ilaah baa mahadle marka labaadna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradiisa golaha wasiirada martishada meesha wada fadhida aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shirka la isugu yimid wanaag insha Allah ku aslaaxiyo ma sha Allah sida aad soo xukunteen guddida kaalmaha haddaan nahay baroodi jeex waanu qaadanay wixii aad nagu xukunteen ma sha Allah tabaaraka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta waxaan ku rakinaynaa in sheekhu duco dhuuxooda gaadhay inuu duceeyo ilaahay idinkii الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلهي سبحانه وتعالى ما هذله الله سبحانه وتعالى كلن كان قيمة بدن سوكن كيني الله إن وافجيه إن أكل النوع عاونتا وقرمتك يتاجرد ولا لهني
dhibaatada aynugu wada dhacday ee ku habsatay suuqa gubtay sidii hore laynoogu sheegay xoolaha ilaahay baa leh qofka hayana ilaahay baa siiyey allihii siiyena wuxuu amray dadka maal u baahan kaalmo u baahan in maalka laga caawiyo waatuuhum min maali illaahi aladii ataakum buuri ilaahay subxana wa tacaala maalka ilaahay ee ilaahay uu idin siiyey wax ka siiya rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam xadiis aada u layaab badan oo ay tahay dhegaheennu inay maqlaan buu ka yidhi maalka iyo nicmada ilaahay dadka qaarkood uu siiyey wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood buu ilaahay u nicmeeyaa oo maal iyo xoola uu siiyaa si ay dadka ugu anfacaan haddii maalkooda shaqadaasi ay ku qabtaanoo dadka ay ku anfacaan ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaasi uu u sugaa waa u kordhiyaa waanu u barakeeyaa hadday ku anfici waayaan oo shaqada ilaahay ugu talagalay xoolaha inay ku qabtaan ay ku qaban waayaan ilaahay nicmadaasi wuu ka wareejiyaa kuwo kale ayuu ku wareejiyaa inta maalkooda dadka ku anfacaysa inta hadda ku dhawaaqday inta ku dhawaaqi doonta inta gurmadkaa ka qaybgeli doonta meel kastoo ay joogaan waynu ducayna waxaan leenahay ilaahay nicmadaasi idin siiye ilaahay idin sugo ilaahay nicmadaha idin sugo masaa'ibta iyo balaayooyinka ilaahay idinka ilaaliyo ilaahay kayd aakhiraha idinka dhigo ilaahay diinta dadnimada sharafta awlaadda dumarka iyo maalka intaba rabbi subxaana wa tacaala ha idinku ilaaliyo ilaahay subxaana wa tacaala sida nebigiisu inoo sheegay sanaa'icu lmacruuf taqi masaarica suuq ixsaanka iyo samafalka qofku uu sameeyo ilaahay wuxuu kaga ilaaliyaa masaa'ibta iyo dhibaatooyinka mid masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ilaahay idinkaga ilaaliyo ilaahay idinka dhigo ilaahay idin barakeeyo nebigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa ballanqaad aynu haysanno wamaa naqasat sadaqatu min maal sadaqadu maalka waxba kama dhinto waaqicana waynu ku aragnaa oo dadka had iyo jeeraale infaaqa badan xoolahooda bixiya sadaqadaysta ku samafala dadka ku anfaca waynu aragnayoo xoolahoodu marba mara ka dambaysa way sii kordhaano way siyaadaan ilaahay idiin siyaadiyo rabbi subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa hawshaasi aynu u kacanay inuu nagu guuleeyo dhammaanteenba quluubteennana ilaahay uu ka dhigo mid midaysan ilaahayna subxaana wa tacaala tusaale fiican baa tiine arrin walba tusaale fiican ha idinka dhigo intiina ku dhawaaqday maalka hoosna waa loo bixin karaa si muuqatana waa loo bixin karaa laakiin qofka si muuqata u bixiya iyadoo niyadiisu ay wanaagsan tahay oo ujeeddadu ay tahay inuu ilaahay daraaddii u bixiyo dadkana tusaale uu ugu noqdo ajar dheeraada buu helaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maruu ku baaqay in la sadaqad la bixiyo ninbaa wuxuu keenay xoolo culus oo dirqi uu ku sido rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaa intuu farta ku fiiqay buu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha qofka waddo fiican dadka u jeexa tusaale fiican u noqda ajarkii wanaaggaasuu leeyahay cid kastoo kaga dayatayna ajarka ka heleen mid leeg buu ka helay iyadoo waxbaan laga nuqsaamin ahayn marka wixii aad ku dhawaaqdaan dad badan bay dhiiri gelinaysa oo idinkaga dayanaya kuwaana ajarkay ka helaan waxay bixiyeen iyadoo waxba laga dhimin idinkuna maadaama tusaale fiican aad u noqoteen waxbaad ku helaysaan ilaahay tusaale fiican haynaga dhigo dhammaanteenba rabbina subxaana wa tacaala ducada haynoo aqbalo haynoo sugo ilaah baynu ka baryaynaa raxamaadkiisa iyo barakooyinka samada iyo dhulkaba inuu inoo furo wasala allahu calaa nabiyina moxamed waxaynu ka wadaynaa meesha colaad wuu bixiyey boqolkiisi kun spare part companieski shirkadihii spare partska iskuullada gaarka loo leeyahay iyo iskuullada dowladda waxaa ku qoran 150 kun iskuullada gaarka loo leeyahay daladii way joogtaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka ganacsatada iyo dhammaanba marti sharafka ka soo qayb gashay kulanka qiimaha badan leh waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii si gaar ay noo taabatay musiibada ku habtay qarankeenna ee ka dhacday suuqa waaheen waxa ay guddida nagu soo qortay lacagtaana insha allah waxaanu kula noqon doonaa iskuulladeenna iyagoo bareefiyad bulga isku midoon yihiin runtii oon la kala saarayn haddana insha allah intaa la nagu qoray insha allah waan qaadanay waxaanu kula noqonnaa iskuullada insha allah waxaad noogu soo ducaysay ilaa inoo dhabeerayo waayo annaga maaha shirkad meel taalloo dee lacagta laga soo qaadaye waa iskuulladana insha allah dee waxa weeyaan waqti bay qaadan doontaa insha allah
waanan isku noqon doonaa waanad mahadsantihiin asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا متشرفتا قولها دحه حكومة دولة هوسية متشرفتا sidoo kale culimada waan salaamayaa haddana ururka dhakhaatiirta waxa guddidu nagu xukuntay waanu qaadanay insha Allah waanu ka soo tartanaa waanu soo gudbin doonaa insha Allah ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدحوينه ku-xigeenka maayarka caasimada iyo golaha deegaanka متشرفتا kale ee ganacsatada ay halkan isku timid dhamaantiinba marka ugu horeysa waa salaamantihiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh lacagtan lagu soo qoray ee qaadhaan ururinta muslimadii ka dhacday suuqa waxaan waanu qaadanay haddii la yidhaahdo waanu islan iskugu noqonnaa ما شاء الله si degdegana insha allah hawsha waanu gelinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaanu nahay ururka warshadleyda waanu qaadanay waana soo bixinaynaa insha allahu tacaala inkastoo guddoomiyihii iyo xubnihii kale aanay malaha shirka joogin laakiin insha allah guddoomiyihii wuxuu ku maqan yahay baa la yidhi cimradii xaramku ku maqan yahay marka waanu qaadanay sheekh ما شاء الله qadarka lacageed ee nagu qoray $100,000 sida ay tahay baanu u qaadanay sida ugu dhaqsaha badanna waxaan ugu soo shubi doonaa akoontka guddida haddii ilaahay qadaro waxaan ilaahay ka baryaynaa in gacanta ilaahay baa lagu dhargaaye oo arrimaha aynu ku jiro ee khayrga ay noo fududeeyo biidnillaahi kariim sida ugu dhaqsaha badanna inuugu asturo ummadda dhibaatada ay gaadhayna waxaynu ilaahay uga baryaynaa faraj khayr qaba gacanta ilaahay baa lagu dhargaa waxaynu ilaahay u weydiinaynaa bedel khayr qaba oo degdeg ah biidnillaahi kariim wixii ay hayeen iyo wax ka badan bayna ahay inuu maaragtay soo geliyo shacbi weynaha Soomaaliland guud ahaan ganacsatada halkan fadhida iyo dawladda maaragtay iyo maamulka guud ahaan golayaasha qaranka ee iyaguna halkan fadhiya isku xilqaamay iyo waliba guddida labada ah maaragtay isu daba joogta hawshan inay wax ka qabato iyagana waxaanu leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay ha idinku daro dhammaanteen waa salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddigu lacagta ay nagu xukuntay urur ahaan waanu qaadanay waananu bixin doonaa ururkana waanu bandhigayaa sida ugu dhaqsaha badan waanu bixinaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirada waan salaamayaa annagu horaanu isu xukunno sabt khamiistii waanu shirno shirka maanaan ogeyn ما شاء الله marka gaar bay isugu yimaadeen shirkoodana xafiiskaygay ku yeesheen 100,000 bay isku xukumeen marka halkan umaan iman inaan maanta kaga dhawaaqan laakiin dee kula haddii ganacsigoo dhan la yeedhiyey anigaa madaxo oo shirkaygii wixii ka soo baxay u ahaa 100,000 sidaasaa insha allah tirada ugu darasaan iyagana 9 diyaaradood oo jamhuuriyadda somaliland ka howlgala $100,000 fiiska koowaad kaga qayb qaadanaya aad iyo aad bay u mahadsan iyagana ilaahay subxaana watacaala halkay ka soo saareen miisaan xasanaad leh ugu bedelo asalaamu calaykum ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka intiina kalena waxaan u salaamayaa adna aadan ismarwaadna aadan ismaaciil dhammaantiin baa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib qaadhaankan na lagu soo qoray shirkadda som petroleum halkan lagaga dhawaaqay idanka ilaahay waanu soo bixinaynaa waana isu tegaynaa ka maamul ahaan hawshaasna idanka ilaahay waxaanu jecel lahay annaga iyo kayrkaba inaanu ku degdegno waayo waxaanu ka shaqaynaynaaba waaba dab annaga laftiga iyagoo shirkadaha shidaalka iyo kuwa batroolka iyo kuwa elektriga iyo waxaan isleeyahay wixii lagu qoray inay hore usii bixiyaanba weeye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ku hadlaya magaca reer sii mar labaad waxaan salaamayaa golayaasha qaranka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka waxaan si gaara isna u salaamaya maalinka caasimadda oo hawshaasi maaragtay si mug looga qayb qaatay iyo guddiyadii hawshaa gacanta ku hayay intaba lacagtaa la nagu soo qoray ee 1,000,000 waxaanu u qaadanay sida ay tahay sida ugu dhaqsaha badanna waxaanu ugu shubi doonaa akoontka guddida haddii ilaahay qadaro aadna waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ka hadlaya magaca malbaan lacagta ay nagu soo qoreen guddiga gurmadka suuqa waaheen waanu qaadanay ka maamul ahaana waan isku noqonanaa aad iyo aad u mahadsantihiin madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada maayirka iyo maayir ku-xigeenka culimada iyo ganacsatada dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaanu nahay star group lacagtana lagu qoray waanu qaadanay waanu bixinaynaa insha allahu tacaala tii tanu lagula hadhi lahaa maahee insha allahu tacaala inta kalena dee way bixin doontaa ilaahayna haynoo fudeeyo idinkana ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم way ka soo gaari waayeenoo magaaladay ka maqnaayeen waan u aqbalay baryeel iyo khadar ambassadorba
labada waana ka wakiil qadarna ugu aqbashay ma sha Allah haddaanu nahay ururka dahablayaasha iskaashatada jawhara lacagtaana lagu qoray waanu qaadanay sida dhaqsahana ugu dhaqsaha badan u soo bixinaa insha allahu tacaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. ليسكي هل كاسو إنه قد ماضي وحنو هدي إن لو دعاء أنا قاضنا يا دم بيجود الله هدافو دمان عدي حنتي مانتين ويا وضي عدة كلامه دم بيجود الله هدافو أنت ودي دمتي الله نحرسته أنت النولنا إلهي سبحانه وتعالى وناقي بركة خير الله سيو إلهي سبحانه وتعالى ماشي خصو صارين iyo meel ka fiican Allah subhanahu wa ta'ala waxay soo saareen wax ka badan Allah u galiyo maalintooda aakhiriin maalintooda adduunyada Allah u barakeeyo nimayahow haddaba gabagabadii annaga xagga iyagii guddigii waan soo gabagabaynaynaa inkastoo oo reer galbeed ahoo gabayga layga fiican yahay haddana tanoo kale markay joogto waa tii uu yidhi bowlada markii aan ka jabay iyo boqonka taagiisa raggii buurta igala baxay beerka ka ogsooni marka runtii baaraka allahu fiikum aad baan ugu faraxsanahay inaad timaadeen inaan juhdigaa samaynay ilaahay idinkii annagana waxaad naga sugi doontaan warqad transparency oo cad oo waxaad soo dirteen iyo meeshay galeen oo dhan oo caddaynaan samayn doona biidni illahi alkariim allah inagu asturo waadna mahadsantihiin wakhtigaa maanta la joogo waxaan uga baxayaa qaybtii dowladda iyo mudanayaasha kale inala joogo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu